السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قاعد شرفت الملك الدنيا كجوكتان كسر دواد يوتيوب جنال كسرت قروح ذا ولا شيء زين ساكنة وجدا أفكا إيحنا صابتنا وحواي حتى سوق كإماضي وقال مكيلو بحايو قصب وحواين سنك للضبوش أفكا دكانة وحرك سوق قدرنا أذيق ير هو سوق بلاس كفرها تقولي جوجا marka qiyaar muhiimad waxa waaye adeeg yar waxa ka soo gatay dukaan halkaan ah oo 99 kala dhaho dadka Malaysia jooga garanaaye marka adeega ka soo gadanaya guriga adeega iga go'ay adeegi badnaa guriga raashinka iyo waxaas uu yaalaan laakiin markasta waxa ka go'ayo waxyaabaha kaleeto oo yar yar ka ukunta adeeg yar yar ka maaragtay rootiga sharaabka waxaas ciyaalka marka hadda waa baxay waa soo adeeganay muhiimada fiidiyowga maanta u sameynayno waxa waaye adduunku waa ogtiin meel walba shutdown laga dhigay meel furan ma lahan waxa furan anaga Malaysia kala farmashiyaasha iyo waxa furan meelaha dukaamada oo adeeg wixii cunay laga gadanayo meel kastana waxa waa 1 mitir qofka markuu waa inuu jirsadaa waa cabranta 1 mitir adeega marka soo gadanaysa marka qof dadku waa kala cararay laakiin سبحان الله عذر كان يعني معجزة أو كان أدونك حواي ضدك هير وحي كلا مرة يعني كلا عران أو خفل بنفتي سوق بقيا بكس عذر كذا بدن بقول أنت ما عذر سهل إلهي أنا جنا جي أنا إيو أهل كان إيو لما المسلمين تملك استيجوكتو مركب مهمة ده هذا أصوغ له وحوا فيديو غانيتي وحواي because مادام جوريها للجوج هذا جوريه هنا معني سيفني جوريه هنا مادام الهجوج أو ضدك جوريه لو الجوج هذا ملنا العادي marka kaliya la baxay hadda dhibaatada taagan waxa waaye waa marka la soo adeeganayo that's all the time dadka baxaya soo adeeganaya marka xilligaas waqtiga soo adeeganayo intaas riski ah qofka inuu is ilaaliyo sanka daboosho maxaa la dadka ka fogaado distance dadka u sameeyo qofka 1 mitir ugu yaraan waa inuu ku jirsadaa qofka ka shaqsiyo inuu xanuunsan yahay ina ka cararta waa ina waxyaabahaas oo dhan aas sameeysaa banaanka marka ka imaadid maxaa la dhihi jiray isla markii gacmahaaga waa inaad dhaqdaa yaa gacmaha waa inaad isla markii soo dhaqdaa biyo qandac iyo saabuun 20 second waxyaabahaas waa inuu qofka sameeyo inta markii laga soo tagana waxa hadda dhibka taagan waxa waaye adeegi because maxaa la jir dukaana ka soo gadatay waxa laga yaabaa qof virus ka qaba inuu taabtay waxa laga yaabaa dad inay ula kac wax ku sameeyeen laana ogtiin bariyaha cudurka waa faafin oo cadawguna iska batay marka hadda waxa la sheegay maxaa la jiray cudurka maxaa la jiray inuu mataqaana baakadaha oo kale waxa duu baakadiyaha duu plastic ya baakado kale hada 24 hour inuu cudurkaas bakteeriyada ay saarnaanaysa la sheegay waxa la sheegay bacda sidoo kale iyadan dhowr saac kala saacadii ma xasuusto laakiin bakteeriyada macnaheedu viruskaas inuu mataqaana germskaas halkaas u saarnaanayo ilaa iyo saacado badan marka taas hadda halis ah marka si aad uga taxadirtid halista noocaas inay kugu dhacdo waxa rabaa inaan intusiyo sida aad iskaga sanitize gareyn lahaydeen ama sida aad iskaga nadiifin lahaydeen cuntooyinka aad banaanka ka soo galteen ka faa'iideyso aan dhamaantii aan leeyahay marka dunida joogtaan caafimaadkeena ka taxadara gurigeena jooga ila daawada fiidiyoga insha Allah idinko mahadsan waa kana aqyaar adeegaygan soo adeegtay gaarigan yarkan ku soo adeegsaday waatan meeshan ay ugu jirtaan insha Allah hadda nadiifin doona la socdo fiidiyoga insha Allah marka hore gacmaha gloveska aan gashan doona waxaan diyaarsan doonaa sanitizerka yani cuntadii aan soo adeegtay wixii aan ku nadiifsan lahaa oo bakteeriyada germska aan ku dil lahaa ayaan diyaarsanaya waxaan isticmaali doonaa baking soda waa baking soda macnaha nadaafada waa loo isticmaalaa guriga dhinac walba ilkaha skinka meel walba kana waxa waa shaambada lagu dhaqaayo weelka asagana waa isticmaala iyo wax yar oo milix ah waxa fiicnaan lahayd biyaha qalka daayasatid biyaha qalka ku darsada laakiin ma haysto aniga soo marka insha Allah dib malaha cusbadana wax yar ku darsanaya bahalkan isticmaal doona already mid ay ugu qasan wax yar laakiin waa si buuxina idinkan saad aragtaan insha Allah la socdo fiidiyoga maxaa la jiray bleachtan waa isticmaalaa asagana laakiin maadaama cunto aan ku nadiifinayo hadeer bleachta waa ka joojiyay soo marka fiirsada insha Allah shaambada ku shubay hadda waa kaasa wax yar oo milix ah hadana ku shubaya insha Allah baking soda insha Allah iyadana oo qiyaas iska qiyaas adiga qiyaas ma lagu sheegay dabcan qof walba wax waa qiyaasan kara marka baking soda oo kale 3 qaando ilaa 4 qaando ku shub caagada xogaa weyn tahay marka caag yarta 2 qaando I think waa enough waa kaasa qiyaari la socda fiidiyoga insha Allah baking soda waa taasa qaandaas soo qabsanaya marka insha Allah waa ku shubi doona iyadana
hal qaando haddana 2 qaando caagada xoogaa weynta ilaa 4 qaando camal soo shuba insha Allah aniga mid kale ay qasan iyadana bleach taas ku jirto marka laakiin taas waxaan u isticmaalaa nadaafada kaleeto oo guriga ma aragtay jikada korkeeda meelaha geesaha albaabada la soo galaayo meelaha gacanta lagu qabanayo iyo waxa leeyahay haduu dhulka wax ku daadaataan iyo miisaska talaagada korkeeda iyo waxaas dhan aan ku nadiifsadaa bleacher iyo shaambada weelka lagu dhaqo iyo baking soda isku dar cusbo kuma darin taas soo marka bleachdaasna waa beelo jeermiska si fiican u disha laakiin maadaama hadda cunto aan waxaan ugu talagalno ku nadiifsado soo bleach ma ku darin kari caafimaadku ma fiicno soo marka waa ka biyo ku soo shuba hadda waa soo buuxiyay waa isku qasanina alaabteen yarta ahayd maasha Allah soo diyaar noogu tahay sida aan ugu nadiifsan doono cunooyinkana insha Allah la socdo cuntada waa kala qamiiskan kala qaybinaya dhinacna waxaan ka dhigayaa waxa la jiray cuntada markaan nadiifiya dhigaya dhinacna inta cuntada kaleeto oo intaana mataqaana nadiifin oo aan sanitays gareynin aan dhigaya ma garata insha Allah marka hada already miiska marka hore nadiifsanay sida u jeedaan videoga إن شاء الله نظافة مربى السجدال شيء مهم واي إلى عذر كان قبل كورونا فارس والله بالله تلاقي هالستيسا وحوا أمريكا دوال وما زائد بدنا وكل عيد بدنا ولنتي إنجليز كسلاس أكلته مركا حوا إن شاء الله إلهي سبحانه وتعالى هنو غرغارو مركستو مركا رواكنا كوانا كبلا وإيغ نفتر كودا سنتايز غرينا مركا استراشا استعمالنا يرتا مركز كبعدين إن شاء الله راشينك كلا صار ديغان دونا إن شاء الله marka ilaahana badbaasho laakiin dadaalka shay muhiim waa nadaafada shay muhiim ah hooyo hadda taa guriga nadaafada ku dadaal guriga hadii lagu degay maanta dhan musqulaha oo kale to albaabada laga soo galay maanta dhan inaan nadiifisid waa ku qasban tahay marka insha Allah ilaahay subhanahu wa ta'ala ummadda islaamka meel kasta ay joogaan cudurkan ka badbaasho ilaahay bisha ramadaan nabad ha nagu gaarsiiyo biidnillaahi kariim dambigeena Allah dhaafo waa kana hadda alaabtii waa soo miiskaas dhinacana soo saarsanaya soke dhinacaas kalena alaabta nadiifkaan dhiganaya marka casiirkan ciyalkayga soo gadaa jecel maxaa yeelay casiirkan horto maxaa dhihi jiray magaaladeena waa kulushahay Malaysia bariyahan wali kula zaada jiro soo casiirkan marka waxa waaye wuxuu soo celinaya jirka ma aragtay fluidka ka baxa biyo dhididkii uu soo celinaya electrolysis waxa la dhahaa ku jirto oo micnihi waxa lagu talagalay inuu jirka soo celiyo biyaha ka baxay marka waxa waa saas oo soo gadaa badanaa ma soo gada laakiin waa marka haleelo waa soo gadaa wax yar sokor ku jirto laakiin waa problem iyaga iska caba ciyaal waay waa kuwana waxaan dhan xaada xulbad waay waxaan xawaariyaal iyo waxaasaytid adeeg yar oo iga dhidhnaa waa adeeg macna badanaa oo yaalaan laakiin mar uu ka go'aya waxyaabaha adeeg marka muhiimkii ah xogaana videoga waa boobsiisa ku xiraysa macnaha iyo u dhamaad videoga ka caajisin insha Allah hadda nadiifintaan bilaabayna la socdo insha Allah bidnillaahi kariim soo ugu faa'iideysataan adeeg iska nadiifiya runtii dad xaasidkaas ka batay meel walba dadka xanuunsan cudurkay faafinayaan gacmahooda iyo inta caluufta soo mariyaan meel kasta taabsiinayaan soo marka jeermiska inay iska dishaan waa muhiim hada caanahan oo kale waa iska nadiifinaa laakiin waxaan ku ridayaa daasada caagad loogu talagalay ku shubaya laakiin waa iska nadiifinaya marka insha Allah kan xalli jiray ka ilaahay subhanahu wa ta'ala ha badbaadiyo ummadda meel kasta joogan islaamka runtii cudurkan waxa waaye waa mucjiso noqotay adduunkan waxa waaye maanta meel u gaarin ma laha marka nadaafada waxa hadda ugu daran guriga la jooga lahay waxa waaye adeegan waa banaanka loo baxaayo oo xogaa risk iska ah ilaahana babaash dadkina waxa waaye qof walba shaqaysan jiray adduunka dhan shad aanu noqday maxaa la jiray casiirka waa kaasta saas oo yahay 100 plus alaha marka Malaysia qofka jooga kale iska fiican oo jirku wuxuu soo celiyaa biyihii ka baxay fluidka maartay uu soo ceshaa electrolysis waxa la dhahaa ku jirto oo yani wuxuu ka sameeyay cusbo iyo sokor
isku dheelitiran qofka markuu for example uu shubmo oo kale ama dhidid badan korkiisa ka baxmo tago oo kale yacni soomaalida bahashan la qaso maxaa la dhahaa bahashan la qaso iyadan electrolysis waa kule kaas waayo ORS exactly haddaan soo xasuustay ORS taas seetid camal waayno oo sharaab camal loo sameeyo oo maxaa dhihi jiray xoogaa yarna waxaa kuwa sooda camal waayo acid yaraa ku jiro marka laakiin ani waxaan usoo gadaa calaashaan meeshaan aada u kululushahay aada loo dhiidayaa ciyaalkas iskaga cabaan marka insha allah waa kana waxay dhahay saas u nadiifinaa insha allah one by one dhinacaas dhigaya waxa geeskaas isku ururin hadhowna mid walbo alaab walba wixii talaagadan gelinaya wixii oo maxaa dhihi jiray armaajada loogu talagalan gelinaya lagu raashinkii waxaas aan ka gashto insha allah hadda intaan yar wax yar le waa iga go-ay aan iska soo gatay maanta maxaa dhihi jiray adeegay inta badan waa i yaalaa alxamdulilah inta waxaan dhicin ka horaa hal mar soo adeegtay suuq weyn oo magaalada ku yaasho NSK ee dhahaan aan ka soo adeegtay يعني راشين كنت أقبض حاجة سانكسو كنت مركا إلهنا لقرب قال هاي حتى تهاي المير أكرسني سيد وحواي مسؤولية أكسارسن نظافة جوريجا وحول بو ما فهمتي ددال كان شيء مهم إنه ددال واي له ددال وده هاي أنا أقول جرا مركا إن شاء الله بإذن الله كريم هذا الكيد يكون بس فيديو وحواي هذا واقع أول مستوى ما ربع ومعني وحيرة لمن إن شاء الله وصار نظيفي وحدث أو فائدة ستان إن شاء الله ciyaalkii yararka idhibo meelaha soo istaagay video inay ka dhex muuqdaan marabi waxa waaye kana waa iska ciyaal waxa waaye mar hadda hooyada ilmihiin guriga ku jooga hadda ilmihi iskuulna ma jiro baryahan guriga la joogaa macnaha kulli alxamdulilah meel walba way xiran tahay boorin ciyaalka walaahi tafash guriga lagu haayaa ilaahay alxamdulilah ilaahay hanaga saaro rootigana waa kana saana iskaga nadiifiyey laakiin waxaan rabaa insha allah in hadhow aan ku rido caagad yar oo isku dabool ah plastic ah intaan bacda kor ka fiiq qashinka ku ridayo bacda kore kana baciga qashinka aan ku guranayo waxaas waaye color geedina waa tana bleachti aan ii sheegay ayadana waa tana aad aan u isticmaalo mar walbana waa soo gataa waxa waaye yani bleachti waaye ayadan badan aan isticmaalo aniga marka nadaafada kala guriga u isticmaalaa zaaid هذا تنا وكنت واي كنت waxaan sameynaa insha Allah horta baakadaha noocan ah ugu daran waxa markii baakad saac amaltaa 4 saac oo bacteria ama virus ku saarnaanaya la dhahay waxaan sameynaa insha Allah kuntiina meel ugu gurmar laakiin baakadan kor amal maartay qashinka iskaga ridaayada qashinka ku tuuraya korka ka buufinaya wax yar يعني يجيسها باكدها وكلا كبوبوفنا تيشو يرا قادنا مركز إن شاء الله كرك وقلجنا وحير باكدنا آدي كقوين بكستي كقوين وحاو كنت لما كاد عيسى وكاد جوسا مقته سو مركز يرو تحضر له إن شاء الله I don't know والله يعني just ددال اللي قلتها I hope إني متقانا شقيصة كل إلهي اسك تحضر وده كله اسك تحضرنا إن شاء الله marka saana u deenaya meel oo nadiif ah saaraya insha Allah geesahana ku buufina wax yar marka insha Allah ka bacdin meel saaraya gooni ah saasa u deenaya marka insha Allah kunta iyadan خلاص adeegna waa kana waan diyaarsaday insha Allah mid walbo meelaheeda ku kala guray wixii talaagad u baahan talaagadan gelina wixii kala meelaha ku kala guraya ma santii dhamaantiin assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh